muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay khandhada ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Khandhada soo ridata carruurta ayaan ka hadli doonaa insha Allah, iyo waxyaabaha loo sameeyo marka carruurta ay khandho qabato ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Kiimikada loo yaqaano cetokinase iyadoo ka jawaabayso soo gelidda cudur-sidayaasha jirka waxay sababtaa in heerkulka jirka bini'aadamka aad u bato. Kiimikadaasi waxay ka jawaabaysaa in jirka soo galo cudur-sidayaal. Markuu cudur-sidayaal jirka soo galaan waxay sababaysaa in heerkulka jirka bini'aadamka uu bato oo waxaa imaanayso wax loo yaqaano khandho ama hypothermia. Inta aan u gudgelin muuqaalkeena waxaan si gaar ah kaga codsanayaa inaad YouTube channelkeena subscribe noo saarto, Facebook page-keena follow aad soo tiraahdo insha Allah. Haddii aad su'aal qabto qaybta hoos comment-ga nagu dhaaf oo kuu soo jawaabi doonaa insha Allah. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay khandhada ayaan ka hadli doonaa insha Allah, ama wax loo yaqaan hypothermia ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Sidoo kale muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha loo sameeyo marka carruurta ay soo ridato khandhada. Khandhada waxaa lagu qeexaa marka heerkulka jirka bini'aadamka gaaro 100.4 degree Fahrenheit ama 38 Celsius. Khandhada cudur ma ahan, waa calaamad taasoo caddeynayso in jirka bini'aadamka dagaal kula jiro cudur-sidayaal. Haddaba maxaa sababa khandhada? Waxyaabaha sababa khandhada ama jirka bini'aadamka heerkulkiisa inuu bato waxaa sababo waxyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, kiimikada loo yaqaano cetokinase oo ka mid ah kiimikooyinka ka qayb qaato difaaca jirka. Markii uu jirka bini'aadamka soo galo cudur-side waxay sababtaa inuu heerkulka jirka bini'aadamka bato. Sidoo kale habdhiska difaaca jirka wuxuu sameeyaa unugyada loo yaqaano macrophages kuwaasoo ka qayb qaato difaaca jirka. Marka unugyadaas la sameeyo kadib waxaa dhacdo in heerkulka jirka bini'aadamka bato. Sidoo kale waxyaabaha sababo inuu heerkulka jirka bini'aadamka bato waxaa ka mid ah cudur-sidayaasha qaarkood sida bakteeriyada iyo fayruska waxay leeyihiin xuub ayay leeyihiin. Xuubkaas markuu dilaaco waxaa la arkaa inuu heerkulka jirka bini'aadamka bato ayaa la arkaa. Khandhada waxay firfircooni gelisaa ama waxay active ka dhigtaa habdhiska difaaca jirka, waxayna fariin u dirtaa unugyada cadcad ee dhiigga. Fariintaasoo ah in la burburiyo cudur-sidayaasha. Haddaba maxaa loo sameynayaa ubadka markay khandho qabato? Qodobka ugu horeeyo waa in aad hubisaa khandhada. Guri kasta waxaa wanaagsan in laga helo mashiinka yar ee lagu hubiyo khandhada kaas oo loo yaqaano thermometer si loo hubiyo khandhada. Waalidiinta qaar waxay isku qaldaan khandhada iyo heerkulka caadiga ah ee jirka. Sidaa awgeed waxaa wanaagsan haddii aad ubadka khandho kaga shakiso inaad hubiso adigoo isticmaalayo thermometerka. Heerkulka jirka bini'aadamka markuu normalka yahay waxaa laga rabaa inuu ahaado 37, laakiin haddii uu gaaro 38 waxaa la dhihi karaa ubadkaasi khandho ayuu qabaa. Ubadka haddii ay caddaato inuu khandho hayso waxaad u samaynaysaa waxaad siinaysaa biyo si aad ugu ilaaliso fuuqbaxa. Ubadka markay khandhada hayso waxaa u wanaagsan in la fuuq celiyo ayaa wanaagsan. Khandhada waxay sababtaa fuuqbax ayay sababtaa oo waxay sababtaa inuu jirka khalalo ayay sababtaa. Sida awgeed waxaa wanaagsan in ubadka la siiyo cabitaan qaboob ah in la siiyo ayaa wanaagsan. Gaar ahaan waxaa wanaagsan in la siiyo cabitaanka loo yaqaano yogurtka. Tallaabada saddexaad ee loo sameynayo ubadka khandhada hayso waa in maro qoyan madaxa loo saaro. Marka hore waxaa wanaagsan in maro qoyan madaxa loo saaro. Markay marada kululaato ama qaleel ay noqoto haddana mar kale loo saaro ayaa wanaagsan. Maro qoyan inaad madaxa u saarto ayaa wanaagsan ubadka si khandhada loogu jibiyo. Fiiro gaar ah, ha isticmaalin biyo qaboob ah. Haddii aad isticmaasho biyo qaboob ah waxaa dhacayso in ubadka galo xaalad kale oo ka daran khandhada taasoo ah in jirka qaboobo taasoo loo yaqaano hypothermia. Waxyaabaha kale muhiimka ah in loo sameeyo ubadka markay khandho qabato waa in loo xiro dhar khafiif ah. Ubadka waxaa wanaagsan markay khandhada hayso in loo xiro dhar khafiif ah oo aan loo xirin dhar culus ayaa wanaagsan si khandhada ugu yaraato. Sidoo kale ubadka haddii aad ku hayso meel bannaan ah ka ilaali qoraxda.
sidoo kale ubadka waxaa wanaagsan inaad u ogolaato inay cunaan waxay rabaan. fadlan cunada ha ku qasbin. ubadka markay qandhada hayso waxaa wanaagsan in la siiyo wax ay jecel yihiin, cunadana ha ku qasbin. ugu dambeyntii ama qodobka ugu dambeeya ee loo sameeyo carruurta qandhada qabto waa in ay sameeyaan nasiino